marka ugu horeyso halkan waxaan ka gudanayaa tacsi run ahaantii waxaan dhihi karaa waa tacsi qaran tacsidaas oo aan u diraayo atooraha badda ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday wuxuu ahaa qof ay malaayiin jecel yihiin shakhsi ay malaayiin jecel yihiin buu ahaa ilaahay dadkii wada jeclaa ummadda Soomaaliyeed dadkii taageerihiisa ahaa dhammaan ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo ilaahay waxaan uga baryaynaa waa bil barakeysan in qabrigiisa uu waasiciyo ilaahay waxaan uga baryaynaa hooyooyinkii uu ka farxin jiray hooyooyinkii uu u taagnaa in baahiyahooda uu daboolo ayadoon weliba cid gaar ah ayaan shaqada u dirsan oo uu gartay maadaama uu leeyahay dad ku xiran kadibna nafsadiisa uu ka dhex arkay in dadka ku xiran uu uga faa'iideeyo dadka masaakiinta ah ee aan awoodin baahiyahooda gaarka ah in ay daboolaan isaga oo sameeyay isagoo ka faa'iideysanaya dadka isaga ku xiran in walaalaha daafaha dunida kala duwan jooga ee Soomaaliyeed inuu u weydiin jiray in dadka masaakiinta ay soo caawiyaan wiilka waliba wuxuu aad iyo aad u caawin jiray hooyooyinka baahan ee masaakiinta ah wiilka hal hooyo kaliya muu lahayn waxa uu ka geeriyooday hooyooyin aad iyo aad u fara badan hooyooyin aad iyo aad u fara badan ee markay muuqiisa arkaan ku farxi jiray una u ahaa sida wiilkooda oo kale ilaahay iyagana maaragtay samri iimaan ha ka siiyo isagana ilaahay waxaan uga baryaynaa in qabrigiisa uu waasiciyo intaa kadib waxa aragtaan hadda TikTok waxa aragtaan wiilka in zaid loo faafinayo ama zaid loo wadwado waxyaabihii uu qaban jiray ee aadka u wanaagsanaa aniga ruuxaygu weli maan arkin muuqaalada haddaan arkayo hooyooyin isagoo dhexda u taagan oo leh ma dheragteen baahiyo kale ma jiro maya oo maaragtay ka ciyaarsiinayo oo la faraxsan yahay Soomaali haddii aad wax u noqotid ilaa aad ka dhimatid mooye ha sugin in ay kugu faanaan wax kale yay kuu qabaneen wax kale yayba kuu qabane Soomaali haddii aad dhexdooda wax ka noqotid ha sugin xitaa in at least wanaaga aad sameynaysid ay kuu boonboonayaan waxaaba nasiib leedahay wanaagaas aad sameynaysid haddaysan kugula dhegin wiilka hadda waxaan aragnaa Allah u naxariistay fiidiyoyo aad u qurux badan oo qalbiga taabanaya qof allaala qofkii hooyo jecel hooyo eraygaas qofkii maqlo ee qalbigiisa ay taabanayso fiidiyoyada la soo dhigayo in wada arkeenno oo qof kasta la muraaqoonayo shalay markuu noolaa waxa qabanaysiin shalay markuu noolaa maxaa qabanaysiin khayr jabaanta meesha kala taga mid kasta oo hadda leh inuu soo qaato muusig calaacal soo saaraya ee akoonkiisa soo gelinaya brother akoonkaada ayaad waxaad rabtaa Allah u naxariistay inaad ku kala kacsatid you not deserve any respect shalay ayuu u baahnaa waxa hadda aad sameynaysaan macnaha wax aniga xitaa igu dar waa wax caado noo noqotay aniga I love my Somali people sida dadka qaar ma oranayo Soomaalida maxaa uga dhalanay yaa ma dhahayo still si kastaan u xunnahay I love my skinny people aad iyo aad u jeclahay laakiin mararka qaar markaa fiirisid waxaad dareemaysaa dadka dunida ugu dhaqanka xun inaan ka mid nahay haddaan ku ahayn iska daa hadda wiilkan wiil Soomaaliyeed u ahaa mararka qaar waxaa arkaysaa qaraabadaada naftirkeeda ehelkaaga qof baa Soomaaliya ama Afrika ka jooga u baahan yahay u fiirsaya caawa habeenkii runta la isku sheegayo waaye lama kala xanaaqan waxa arkaysaa qaraabadaada waxa ku jiro qof baahan Afrika u jooga qofkaas baahan dad baa dibadda u jiro oo dhaqan oo gawaari qaaliya sita
taraaglayaal ay ku jiraan lacag haysta hantiilayaala qofkoodii africa ka joogay waxaa laga yaabaa baahiyo zaa'id oo gaara inuu qabo xanuunna inuu qabo inuu u baahan yahay in la caawiyo wuu xanuunsanayaaba xanuunkiia waxaa la leeyahay waxba lagagama qaban karo waddankii markaas uu joogay africa wuxuu leeyahay ehel iyo qaraabo dibadda jiraan awoodaan in ay soo kaxeeyaan meelaha waxa looga qaban kara caafimaadkiisa ay ka bixiyaan gabadhaa way mahadsantahay juweeriyo aada u mahadsantahay for the gift waxaa dhacaysa qofkoodii ayagoo awooda in ay wax ka bixiyaan markuu xanuunsan yahay ama dhaqaatiir geeyaan markuu qofki soo waco oo loo sheegaya hebela xanuunsan telefonka ma qabanayaan way iska dhigitirayaan hebelkii xanuunkiisa zaa'id uu sii noqonaya waxaa la leeyahay dalka waxba lagama qaban karo waa loo soo sheegaya asoo awoodo 5,000 ama 10,000 oo doolar u diro ee qofka dhakhtar lagu geeyo ee wax loogu qabto waxweyna la noqonaya waxba ma diraayo ugu dambeyntii qofkii wuu dhimanaa 100 geel uu soo diraa iimaanka lagaa qaad 100 geel inta u wadaa qofkii aa dhimanayo waa oynaa 100 geel uu soo diraa lacag dhan oo maaragtay gaaraysa shalay markuu xanuunsanaa 10,000 oo doolar u baanaabe maanta markuu dhinto 100 neef oo geelaa soo diray haa shalay usoo diri weyse markuu xanuunsanaa my Somali people I love you so much guys I love you so much laakiin dabeecadan aan iska bedelno horta aniga hadda 1 milyan waaba gaarooyaa oo weyga 1 milyan ah kusoo gaaray ma fadhinayay waa bedelaa talentigayga dhabta ah oo aan ahayn heeso iyo reaction aan la soo bixi doonaa kaasoo jiliin ah ballan waayo waxyaabo fara badan aan riwaayad kasoo samayn doonaa magaca sii keena maa hot uncle maadaama odayg uu sii weynaanayo magaca sii qora hot uncle riwaayadana way soo socdaan reality aan ku taabanayo hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaan ka yaabay qofkeena xanuunsan markuu lacag u baahan yahay uma direenno markuu dhintaan 100 neef oo geel u direennaa dabeecaddaas aan iska bedelno nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi ehelka wuu ka dardaarmay xitaa sadaqada fiiri dad waxaa jiro hadda sadaqa la baxaya dibadday joogaan maraykanay joogaan yurubay joogaan wiilaa life soo galaya ama magaalada uu joogaa wax laga ururina asagoo istutusaya magaalada uu joogo wixii laga aruurinayay in la dhaho hebel 10,000 oo doolar u dhiibay ayuu wuxuu sameynayaa in sadaqada magaaladiisa laga ururinayo uu 10,000 oo doolar ku darsado 10,000 oo doolar markuu ku darsado waddankii gadaal markii loo noqdo back home qaraabadiisa dadaa baahan oo xanuunsan oo u baahan inuu caawiyo caawinta ehelkaaga ka bilow sadaqada ehelkaaga ka bilow caawinta iyo sadaqada ehelkaaga ka naga daacidiya iga dhigtay dhegeyso and dhegeyso horta maxaa kala maxaa kala marka waxaa sheegtay aadan haynin waa sidaas maxaa heli la caadi ahay horta maxaa horta jigaarta horta wala jigaarig maade hada caadi kula hadlo ishag waxa ay sheegi rabtid maxaa kaasiyo isma qosli yida saayay maye kala afkii qabo afka la xayni afka xariimay gisan yida samaysaa waxa what halla ilkaanti ku yeelan qosolniyo hida iyo maxaa iska gadana waxa sheegtay waxa sheegtay saamiyo ermaysi hida waan sanaysaa maxaa ku saaray
ما شاء الله والله. عادي ما كلها الله يا أنا هي ده ما تناسب ولا